kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobadan caawa barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda dalka, kulamo siyaasadeedkii ugu badnaa oo ka dhacay Muqdisho iyo madaxda maamul goboleedyada taageersan madaxweyne Farmaajo oo dhoolato siyaasadeed soo bandhigay. maxaa ka soo baxay kulan dhexmaray ra'iisul wasaare Rooble, madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabelle iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya. haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa dalabka Mareykanka ee doorashada dalkeena. guddiga ra'iisul wasaare Rooble ka taageeraya farsamada doorashada oo yabo dhaqaale weydiistay kooxda qaramada midoobay u qaabilsan taageerada doorashooyinka. maxaa loo ballan qaaday guddigan? waan idiin haynaa. wararkeena kalena waxaa kamid ah golaha midowga murashaxiinta oo war xasaasi ah ka soo saaray guddigii uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya u magacaabay baarista dhalinyaradii loo qaaday Eritrea iyo murashaxiinta oo dalab culus durbadiiba hordhigay ra'iisul wasaare Rooble iyo Saadaq John, taliyihii hore ee booliiska gobolka Banaadir oo safar lama filaan ku tagaya caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb iyo xog laga helay ujeedka safarkiisa. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana habeen axad ah 13 bisha saddexaad ee June sanadka 2021. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaado dib-u-dhiska dalka inagoo ka dheeraanayno wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan. fadlan nala faafay wararka oo gaarsiiyay saaxiibadiina idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada. mahadsanidin. aynu ku bilowno wararkeena. waxaynu ka hormaraynaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda dalkeena iyo kulamo siyaasadeed oo aan caadi ahayn oo Muqdisho ka dhacay saacadihii la soo dhaafay. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxay martigelisay kulamo siyaasadeedkii ugu badnaa tan iyo heshiiskii doorashada ee Muqdisho lagu gaaray, gaar ahaan teendhada Afisyoone. kulamadan ayaa waxaa abaabulkooda waday madaxda maamul goboleedyada taageersan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaan labada maamul ee Hirshabelle iyo waliba sidoo kale Galmudug. madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle ayaa Muqdisho waxa ay ku soo bandhigeen dhoolato siyaasadeed iyaga oo doonaya in ay soo bandhigaan isla markaana muujiyaan taageerada iyo cududda ay u hayaan madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sida la fahamsan yahay ay ka taageeri doonaan doorashada dalka ka dhacaysa sanadkan 2021. haddaba waxaynu eegi doonaa waxyaabihii ka soo baxay kulan dhexmaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabelle iyo waliba sidoo kale safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, iyadoo Mareykanka uu dalab hordhigay madaxdii uu la kulmay maanta. ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo ay weheliyaan madaxda dowlad goboleedyada kale ah Galmudug iyo Hirshabelle ayaa kulan la qaatay safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ninka la yiraahdo Donald Yamamoto. kulankan ee labada dhinac dhex maray ayaa waxaa looga wada hadlay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Mareykanka iyo geedi socodka arrimaha doorashooyinka la filayo in dalkan ay ka dhacaan, iyo waxa uu ka damacsan yahay Mareykanka doorashadan ee Soomaaliya ka dhacaysa sanadkan oo heshiis buuxa iyadu laga gaaray. waxaa sidoo kale kulankan ay madaxda ay ku wada la fagureen arrimo ku saabsan dalkeena Soomaaliya, gaar ahaan sidii Mareykanka uu taageero xoog leh uga geysan lahaa sidii al-shabaab looga saari lahaa Soomaaliya, iyo waliba sidoo kale sidii Mareykanka uu usii joogteen lahaa kaalmada dhinaca bani'aadanimo ee Soomaaliya uu ka fidiyo. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa wada kulamo uu la qaadanayo qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka, kuwa uu kala hadlayo taageerada dhaqaale ee doorashada iyo sidii ay u taageeri lahaayeen dadaalada uu wado. dhinaca kale ee kulan kale ayaa waxa uu dhex maray guddigii ra'iisul wasaare Rooble uu u magacaabay in ay ka taageeraan farsamada doorashada dalka ka dhacaysa. waxa kulankoodaas ay la qaateen koox ka socotay qaramada midoobay. guddigii farsamada ee arrimaha doorashooyinka ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda mudane Maxamed Xuseen Rooble waxay maanta kulan la qaateen xubno amaba koox ka socotay qaramada midoobay. kooxdan ayaa waxa ay qaramada midoobay u qaabilsan tahay in ay dalalka ka taageeraan arrimaha doorashooyinka. guddiga farsamada iyo kooxda ka socotay qaramada midoobay waxa ay si qoto dheer uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan isu duwidda iyo mideynta howlaha lagu taageerayo dadaalada ra'iisul wasaare Rooble ee hirgelinta doorasho daahfuran oo Soomaaliya ka dhacda sanadkan.
labada dhinac waxa ay isla garteen muhiimadda ay xilligan leedahay dardargelinta hanaanka doorashada maadaama uu heshiiskii dhowaan lagu saxay magaalada muqdisho dhigayay in muddo ku siman 6 maalmood ay ku dhacdo waa 60 cishaan raali ahaada doorashada Soomaaliya. kooxdan ee ka socotay qaramada midoobay ayaa la weydiistay taageero ee dhinaca dhaqaalaha ah maadaama qaramada midoobay ay kamid tahay wadamada amaba ururada sida weyn uga taageeraya Soomaaliya dhinaca dhaqaalaha doorashada dalka ka dhacaysa iyadoo arintaasina ay ka aqbaleen kooxdaasi guddigii ra'iisul wasaaraha uu magacaabay. kulankan waxa uu qayb ka yahay kulamo ay wadaan guddigan sare ee farsamada ee ra'iisul wasaare Roble ka taageeraya doorashada waxayna qorsheynayaan inay ka shaqeeyaan sidii dalkan ay uga dhici lahayd doorasho daahfuran oo ay ku wada qanacsan yihiin dhammaan saamileyda siyaasadeed ee dalka ka jirta iyadoo ay xusid mudan tahay in heshiiskii laga gaaray arrimaha doorashada uu yahay mid ay ku wada qanacsanayeen dhammaan saamileyda siyaasadda dalka. dhinaca kale isla arrimahaas doorashada la xiriira intaanan ka bixin waxaa la qorsheynayaa in saacadaha soo socda madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor uu ku dhawaaqo gudiyada farsamada waa gudiyada doorashada ee heer federaal heer dowlad goboleed iyo waliba sidoo kale midka xalinta khilaafaadka maadaama maamulada dhammaan ay soo magacaabeen gudiyada doorashada maamulada waxaa dhiman maamulka Galmudug oo kaliya iyadoo arintaanina laga sugayo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor. waxaa la sheegay in saacadaha soo socda sida ugu dhaqsiyaha badan uu madaxweyne Qoorqoor guddigaasi ku soo magacaabi doono. xogaha laga helay Qoorqoor waxay sheegayaan in xubnihii cabashada laga keenay ee ku jiray gudiyada doorashada ee maamulka Galmudug in uu isbedel ku sameyn doono madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor. xubnahaasi ayaa waxa ay tiro ahaan gaarayaan ilaa 4 xubnood waxaana laga yaabaa in dhammaantood uu isbedel ku sameeyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor. waa xagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan warqad TV-na waad naga daawanaysaan iyadoo xalayto ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu magacaabay guddi baaritaan ku sameeya dhalinyarada la sheegay in loo qaaday dalka Eritrea kadibna ay ka dagaalameen dalkaasi Ethiopia ayaa arintaasi waxa ka hadlay golaha midowga murashaxiinta mucaaradka oo arintaasi iyagu ugu horeyn soo dhaweeyay waxa aynu ku amaaneen ra'iisul wasaare Roble tallaabadaasi oo uu qaaday oo ay ku tilmaameen in ay tahay mid geesinimo leh isla markaana loo baahan yahay in waalidiinta cabashada maalin waliba qabta in xal la siiyo. golaha ayaa waxa uu qoraal uu soo saaray ku yiri golaha midowga murashaxiinta waxa uu soo dhaweynayaa go'aanka uu ra'iisul wasaare Roble qaatay ee ku saabsan in uu magacaabo guddi heer qaran ah oo baaritaan ku sameeya dacwooyinka ay soo jeediyeen waalidiinta ee la xiriira xaaladda ubadkooda oo tababar ciidan ugu maqan dalka Eritrea iyo eedeemo ay baahisay hay-adda xuquuqul insaanka qaramada midoobay oo ah in ciidamadaas ay ka qayb ahaayeen dagaalada sokeeye ee dalka Ethiopia ka dhacay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay golaha midowga murashaxiinta. dowladda Soomaaliya waa in ay ka waantowdaa jahwareerka iyo marin habaabinta ay ku hayso ummadda oo ah in ay mar waliba gacan bidixeeyaan oo aanay si xalaal ah u gudanaynin howlaha qaran si dacwadda waalidiinta iyo doorashooyinka dalka loo marin habaabiyo ayay u marin habaabinayaan waalidiinta cabashada qabta ayaa lagu sii yiri qoraalka ka soo baxay golaha midowga murashaxiinta. ugu dambeyntii golaha waxa uu yiri golaha waxa uu mar labaad ku boorinayaa mudane ra'iisul wasaare Roble in uu si degdeg ah u soo magacaabo guddi hor leh oo raali laga wada noqon karo oo hanan kara kalsoonida waalidiinta dacwadda qaba iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. arintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay xiisadii ka dhalatay dhalinyaradii loo qaaday dalka Eritrea maadaama qaramada midoobay ay soo saartay warbixin sheegaysa in dhalinyaro Soomaaliyeed ama ciidan Soomaaliyeed ay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay dalkaasi Ethiopia inkastoo dawladdu mar waliba eedeentaas ay iska fogeyso. haddana ra'iisul wasaare Roble ayaa arrintan soo fargeliyay waxa uu u magacaabay guddi wasiiro taliyaal ciidan iyo safiir markaasi isugu jira. gabagabada warqad TV ayaynu isla soo gaarnay. ugu dambeyntii haddii aynu fiirino waxaa lagu soo waramayaa in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug uu berrito gaari doono taliyihii hore ee
booliiska gobolka banaadir ninka la yidhaahdo saadiq john oo si weyn ay isku diidan yihiin dowladda uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. saadiq john ayaa biri lagu wadaa in uu ka dego magaalada dhuusamareeb xilli ilaaladiisa ay haddaba gaareen garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi. taliyihii hore ee qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir saadiq john waxaa lagu wadaa in uu biri gaaro magaaladaasi, welina si rasmi ah looma xaqiijin socdaalkiisa uu ku tegayo magaalada dhuusamareeb, balse warar aynu helnay ayaa waxay sheegayaan inay la xiriiraan arrimo ku saabsan doorashada la filayo in halkaasi ay ka dhacdo oo uu ciidamo iyo abaabul halkaasi ka bilaabi doono. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey warkeena. tan iyo warkan war lamid ah intaynu dib ugu kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.